marka qofka muslimka ah lagu dhiirigelinayo inuu aakhiro u shaqaysto macnaheedu ma aha inuu adduunyada halkan iska dhigo oo isdayaco laakiin taa cagsigeeda aayaadka quraaniga iyo axaadiistuba iyo weliba xikmadaha kala duwan ee salafkii laga soo wariyey dhammaantood waxay nagu tirtirsiinayaan in qofka muslimka ah uu noqdo qof isku filan oo danihiisa ku dadaala رب سبحانه وتعالى وحاو قرآن كليهي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا رادي وحا إلهي قطلق لي دارت آخرة يا دارت آخرة كبت بادي سيد وأعمال صالحة هذا هنا إلاوين نصيبك هذا دونك كل يضحي وميرها يسكفريسا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحاو كليهي احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كد ذال waxaa ku anfacaya ilaahayna kaalmayso oo ha caajisin meel la iska fadhiisan kaliya ma aha mid kamid ah culimadii salafka isagoo inagu dhiirigelinaya qofku shayga uu rabo inuu nolosha xaqiijiyo hadduu aqoon yahay hadduu tacab adduunyo ah bayahayba in uu u soo jeedo habeenna badan oo u dadaalo iska daa maalintii waxa uu yiri man talaba al-ula sahara al-layali qofkii meel sare hiigsanaya oo meel sare raba habeenna ayuu soo jeedaa maaha culimadii salafka ahayd oo kaliya xitaa abwaanadii Soomaaliyeed ee xikmadda badnaa ee suugaanta laga soo raacay qayb kamid ah waxay dhaheen marka damaca qeyrka yahay dunidhan maare ma aha adna dib u guur oo hankaaga duuduub darajada wax ka xiga oo aan dadaal ahayn bulshay nusuusta kala duwan iyo xikmadahaas iyo gabayadaasi waxay wada tilmaamayaan inuu qofka muslimka ah noqdo qof qawi ah oo adduunkana ka dhex muuqda oo shayga uu ka shaqeynayo ka soo dhalaalaya dadaal iyo waqtina u horaya haddaba waxa laga rabaa inaad adduun iyo aakhiraba u shaqaysid oo aadanahaaga ilaashatid aad baa mahadsantihiin muuqaalkan sii faafi si walaalo fara badan ay uga faa'iideystaan ajarna aan uga wada helo bishaaro waxa loogu bishaareynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta islaamka sida higaada quraanka oo hab tajwiid loo barayo aqoonta barashada farteena Soomaaliga ee dhaqanka iyo in waliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha aqoonta ku tacalluqa sabab hadii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550 aad baa u mahadsantahay